kulanti wanaagsan saaxiibayaal soo dhawaada maanta magaalada muqdisho ee caasimada Soomaaliya waxaa gaadhay madaxweynaha maamulka SSC Khaatumo mudane Cabdiqaadir oo Cali Firdhiye reer muqdishona maanta waxay direen message kale oo run ahaantii dhabarka ka jabinaya cadawga iyo cid walba oo ku fikiraysa ummadda Soomaaliyeed inay kala goyso soo dhaweyn heer sare ayaa loo sameeyay ummadda Soomaaliyeed nin walba danbuu leeyahay maanta halkaan message baa laga diray ninkii aqli lana waa fahamsan yahay ninkii aan aqli lahayna de waxba u sheegi mayno marka waan dul istaagi doonaa soo dhaweynta iyo sida loo soo dhaweeyay qaabka loo soo dhaweeyay waxa kale oo rabaa mid iyo labo inaan ka dul istaago Firdhiye maxay tahay ujeedada uu tagay magaalada Muqdisho iyadana waan iftiimin doonaa waxaan dhinaca kale oo iyadana dul istaagi doonaa madashii wada tashiga qaran ee maalinta Isniinta soo socoto la filayo inay furantay dawladdu ay dib u dhigtay maxaa laga filanayaa warar cusub baa ka soo kordhay iyadana arrimo run ahaantii murugadeeda leh ayaa iyadana ka soo baxaya waa dul istaagi doonaa dhinaca kale oo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa isagu dagay hal jar oo doonayo inuu iskaga qanciyo golayaasha amaba beesha caalamka qaramada midoobay iyo daneeyaasha siyaasadda Soomaaliya ee ku cadaadinaya in madal loo dhayahay uu qabto Xasan Sheekh Maxamuud si looga arinsado marxaladda siyaasadeed iyo midda amni jahwareerka ee lagu jiro ee dalku ku jiro si looga arinsado sida wada ogsoonayeen bacadaadis xooggan baa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud la saarayo beesha caalamka markii afraad ayuu la kulmay oo kulan ay la qaateen waxaana lagu cadaadinayaa war madal loo dhayahay oo saamilayda siyaasadeed siyaasiyiinta la yaqaano iyo saamilayda siyaasadeed bay ka soo wada qayb galayaan qababa la leeyahay isagana jar kale oo doonayo inuu iskaga qanciyo dagay marka jarta Xasan Sheekh Maxamuud iyo cadaadiska ku imaanaya iyo waxa laga filanaya shirka maandayda soo socota la rabo inuu furmo ayaan iyadana dul istaagi doonaa oo si fiican u qaada dhigi doonaa soo dhawaada muuqaalka like saara aragtidina nugula wadaaga qaybta commentiga aynu ku bilownaa sida wada ogsoonayba maalmihii la soo dhaafayba waxa la saadaalinayay in madaxweynaha maamulka SSC Khaatumo uu tagi doono magaalada Muqdisho galabta ayuu ka dagay xamar waxaana si weyn halkaas ugu soo dhaweeyay mas'uuliyiinta dawladda federaalka laamahooda kala duwan siyaasiyiin iyo waliba shacabkii magaalada Muqdisho oo aan u kala harin garoonkii baa la soo buuxdhaafiyay soo dhaweyntii Firdhiye maanta soo dhaweyntan marar horeba uu tagay sidan si lamida looma soo dhaweynaynin maanta soo dhaweyntan message bay horta diraysaa waxayna adkeynaysaa aqoonsigii maamulka SSC Khaatumo shacabkan iyo dawladdan iyo mas'uuliyiintan isku soo baxay waxa weeye iskugu imaadeen danahooda soo baylihiyay bilaash kuma soo baylihinina waxay dirayaan message waa hambalyo SSC Khaatumo loo hambalyeynayo waa farxad waa reynreyn waa dadka waxa weeye sida ay run ahaantii ugu faraxsan yihiin aqoonsiga maamulka SSC Khaatumo iyo Firdhiye oo madaxweyne buuxa ah amaba maamul goboleed buuxa ka socda oo magaalada Muqdisho soo gaaray bay ka dhigaantahay dad bay marka dhibaato ugu sugan tahay SNM maanta waa loo qosgooyay iyo xildhibaanadii iyagana waxa weeye xamar joogay ee ka shaqeynaya kala goynta iyo ummadda Soomaaliyeed kala tageeda ka shaqeynay ee iskaga mishaan qaadanay ee waxa weeye dhagar iyo khiyaabo mooyeen aan wax tar bulshada u lahayn iyagana waa loo soo yahay xildhibaanada iyagana dhabar jab weyn bay ku tahay dhabarka laga togtay sida wada ogsoonayba ra'iisul wasaaraha tagitaankiisii uu tagay la sacaanood dhowr maalin baa dib loo dhigay sida wada ogsoonaydeeba waxa cadaadis saaray xildhibaano ka tirsan golaha shacabka oo ka soo jeeda Soomaaliland waxay isku dayeen inay xataa ay u hanjabaan xilkan ka qaadayna hunu ma dhihi kartid ma tiri kartid ma aqoonsan kartid sool waxa weeye waa la sacaanood kaliya nimankan ka degaan dhulka anaga ugu badan anaga deegaan si loo aqoonsanaya dadka waa in la isku keen waa in si la yeelo baba Hamza wuxuu inaga dhagaamsuwi inaga dhageysan maayo isaga Xasan hoosta laga heshiiyay waa ku maalmo dib dhacba ku imaaday laakiin ugu dambeyn la sacaanood waa tagay aqoonsigu waa lagu dhawaaqay mashaariicii waa la dhex dhigay maamul goboleed buuxa weeye uu yiri fariin buu diray hay'adaha caalamka iyo dawladaha Soomaaliya siyaasadeedana iyagoo u diray wuxuu ugu baaqay inaan lagu muroosay aysan ahayn deegaanada SSC Khaatumo inay yihiin maamul goboleed buuxa inay dawladda federaalku aqoonsatay in shacabka rabitaankooda 6 February 2023
ay dowladda federaalku ixtiraamayso iyo go-aankii shacabka ka soo baxay ee maamulka ay ku dhisteen. haddii la aqoonsaday marka maanta dhoolatus bay sameeyeen nimanka reer xamarkuna niman ciyaar maaha naftirkoodu. dhoolatus bay maanta sameeyeen, si diiran baa loo soo dhaweeyey, wasiirada looma kala harin, mucaarad iyo muxaafidba raggii hore mucaaradka ku haya kuwii muxaafidka u ahaaba dhammaan si fiican baa loo soo dhaweeyey. messajkaasay marka diraysaa rag baa loo qoosgooyey, kala goyn iyo balaayo iyo hunuhunu ka shaqaynaya 32 sano ayaa tigidka loo sii dhameeyey. waa tagay Firdhiye, aad bay u mahadsan yihiin Muqdisho sida ay u soo dhaweeyeen. reesasi Khaatumaan waxaa leeyahay hambalyo, taasi waa midda. dhinaca kale Firdhiye wuxuu u tagay ka qaybgalka shirka madasha wadatashiga qaran oo isniinta soo socoto berinta kaliya ay ka dhiman tahay dowladda federaalku ay u jadwalaysay inuu furmo 1 May oo bishan hadda ku jirno 1 ilaa 2 ayuu madaxweynuhu horay u jadwaleeyay micnaha inuu furmo oo u asteeyay, laakiin ma noqonin oo cid ka soo qayb gashaan la waayba oo waxa weeye dib u dhac baa ku imaaday. kadib 5 maalmood baa lagu diray, isniintay haddana yay ka bilaabanaysaa. ifafaalada ka soo baxaysa iyo markaad qiimayso waxay u egtahay in xataa isniin ay waxba furmi doonin. laba arrimood baa loo sababaynayaa. midu waa mide madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo tubtii saxda ay aan qaadin, shirkan tubtu wadadii uu ku furmi lahaa iyo hanaankii ku furmi lahaa madaxweynuhu ma qaadin, wada khaldan buu qaaday. waa midda labaad ee tabashooyinkii maamul goboleedyada, madaxda maamul goboleedyada la rabay in kuwa tabashada qaba marka hore lala fadhiisto, iyadana lama fadhiisanin oo lama xalinin sida Puntland iyo Jubbaland iyadu lagumaba soo darinba oo invitation looma soo dirin, laakiin Puntland baa loo soo diray. Puntlandna tabashadii ay qabeen ba lagalama fadhiisanin. markay fafaalada ka soo baxaysa iyo qiimeynta markaan ku samaynay Monday shirkaas ma furmi doono sida hadda muuqata haddaan jadwalka waxba laga bedelin. madaxweyne xasanna waa waxa weeye qowda maqashiin weeye wixiisu daacad kama aha in shir loo wada dhan yahay oo lagu xisaabtamayo oo jahwareerka siyaasadeed dalku uu ku jiro looga arinsanayo in la qabto kuma jiro, diyaar uma aha. tub kale tub qaaday iyo wada kale beesha caalamkuna cadaadis xoogan bay ku saarayaano waxaa la yidhi waa inaad qabataa shir loo dhan yahay siyaasiyiinta waxa weeye saamilada siyaasadeed oo dhanba, siyaasiyiinta mucaaradka iyo saamilada siyaasadeedba ay ka qayb galayaan. saamilada siyaasadeed marka lagu leeyahay waa madaxda maamul goboleedyada. siyaasiyiinta mucaaradka ee la yaqaana marka lagu leeyahayna waa ragga la garanayo weye, sida Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo Cabdiraxmaan Cabdishakuur iyo Xasan Cali Khayriye, Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ragga mug iyo maamuus kala weye, ragga la yaqaana ee laga hadlayo siyaasiyiinta mucaaradka. wixii kaloo lagu darayo hadee hoosta lagaga darayana iyadana iyo kuwa la socdaba iyadana waa jiraan. markii afraad buu madaxweynuhu la fadhiistay beesha caalamka, wakiilada beesha caalamka. waxaa looga arinsanayana wax kale maaha, war xasanow shir qabo loo dhan yahay, madalbu loo dhan yahay qabo oo dalkan arrimaha siyaasadda ee laysku haysta, gaar ahaan arrimaha doorashooyinka ee hadda arrinta culus ay ka taagan tahay, khilaafka culus uu ka taagan yahay, ha laga doodo oo heshiis ha laga gaadho. oo dhinacan amniga ee sii daciifaya wadatashi iyo wixii la iskala qaban karo ha laga wada hadlo. oo weliba waxay qusaysaa madaxda maamul goboleedyada iyo madaxda dowladda federaalka ayay qusaysaa. kuwa mucaaradka wayba ka dadbantahay, taasoo ayagu dee maandaydu ma haystaan iyo waxay ayagu qabanayaan baa iska yar, wixii qabtaan waa talana bannaankayba ka bixin karaan haddii laga heshiiyo, ilaa haddayba talooyinka bixiyaan. arrimahaas baa markaa madaxa iskula jira oo u muuqda in shirkuna uusan furmi doonin, madaxweynuhuna tub kale uu qaaday, beesha caalamka iyo saamilayda siyaasadeed iyo madaxda mucaaradkuna wadadii ay sugayeen wadaan ahayn buu hadda weli madaxweynuhu uu hayaa. markaan qiimayno oo dhinac walba aan ka fiirino, shirkaa wuxuu u egyahay inuusan qabsoomi doonin oo muddada hadda maandayda soo socota uusan shir furmi doonin. waa suurtagal inay 3 madaxweyne maamul goboleed ama 4 ay soo farfadhiistaan oo Firdhiye uu ka mid yahay, waa suurtagal. laakiin sida la rabay sidaasi ma aha. beesha caalamku iyo wadamada siyaasadda Soomaaliya daneeyaba sida ay rabaan sidaa ma aha. sida iyagu ay doonayaan ay rabaan waa madal loo wada dhan yahay, waa khilaaf dhinac walba la xalinayo, waa doorasho jadwalkeeda lagu wada qanacsan yahay oo isku dhinac u jeeda oo waxa weeye la garanayo. taas bay marka beesha caalamka iyo qaramada midoobay wadamadu ay Soomaaliya ku taageeri karaan. tiina hadda ma muuqato. madaxweynuhu waduu haystaa, aniga taydaa soconaysa, doorashaan qabanaya qof iyo coda,
ciddii diidahay diido waxa weeye burku u yeedhay oo u yidhi adigu waxaa tahay mucaarada tartan burka ninkii burka ah bay u yeedhay mucaarad oo dhan wuxuu yihi anigoo loo joojin ma cid loo joojinaya ma jiro marka hanaanka marka ay hadda ku socoto waa hanaan dalkeena jahwareer siyaasadeed iyo amni xumaba sii gelin karta haddaan xal laga gaadhin waynu eegi doonaa wixii kasoo kordho hadduu alla idmo